kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobada kugu henan waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay shirka golaha wadatashiga qaran ee looga hadlayo arrimaha istiraatiijiyadda dagaalka dhanka al-shabaab oo markaasi goordhow ka furmaya magaalada Muqdisho iyo madaxda maamul goboleedyada oo ka qayb galaya shirkaasi. Qodobada muhiimka ee shirkaasi horyaala ayaan soo gudbin doonaa dhinacyada aragtida ee markaasi ka midaysan waxay isku diidan yihiin. waxaa kaloo daawan doontaan kooxda Damo Jadiid oo laba dhinac u kala jabay. Itoobiya iyo Masar ayaa la kala safteen durbaba khilaaf ayaa soo kala xagalay Damo Jadiid daba khilaafkaasi ma hasaadar ku boojira waa daawan doontaan. waxaa kaloo in soo gudbin doona maxaa ka jira in qorshe siyaasadeed loo hakinayo kala fadhiyada baarlamaanka ee golaha shacabka ee Soomaaliya kadib in muddo uusan furmin sabab la xiriira khilaafida iyo in mooshinada nabaysan qaarkood laga gudbinayo madaxda guddoonka golaha shacabka baarlamaanka. qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa warar kale ama caalamka diblomaasiyadda. fadlan haddii aad noqoto subscribe una saar gambalka kana furo una sii sheergareeya saaxiibadii meel kasta joogaan idinka commentiga laaga inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin. bal markaana aan ku bilaawno. waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka. inta badan hogaamiyayaasha maamul goboleedyada dalka ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana ku sugan madaxweynayaasha maamulada Hirshabelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland iyadoo la sugayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. qabanqaabadii ugu dambeysay ayaa socotay maalmihii lasoo dhaafay iyadoo shirka uu furmay islamarkaana dhinacyadu ay ka doodayaan qodobo xasaasi ah. shirka waxaa gudoomin doona madaxweynaha Soomaaliya oo markaas ay ka qayb galayaan ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre, duqa Muqdisho iyo shanta hogaamiye goboleed ee dalka. wararkan helayno ayaa sheegay in shirka madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada dalka looga hadli doono arrimaha ay ka mid yihiin wada shaqeynta labada dhinac iyo sidoo kale xoojinta howlgallada haatanba ka bilowday dalka ee ka dhanka al-shabaab. xogta ayaa intaas kusii daraysa in madaxda ay falanqeyn doonaan arrimaha shidaalka ee ay haatanba faraha la gashay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo dhameystirtay heshiiskii shidaalka. sidoo kale waxaa shirkan lagu soo qaadi doonaa gurmadka abaaraha maadaama ay kasii darayaan xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira koonfurta iyo bartamaha dalka. madaxweynaha oo xafiiska kusoo laabtay 15 May sanadkan 2022 ayaa kulmo horay la yeeshay madaxda maamul goboleedyada isagoona kala hadlay sidii ambaqaadda howlaha waaweyn ee horyaala dowladiisa cusub iyo sidoo kale waa shaqeynta labada dhinac maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya. warar hoose aan helnay ayaa sheegay in dhinacyada qaar ay isku khilaafsan yihiin qodobada shirka looga hadlay sida arrimaha shidaalka oo madaxda maamul goboleedyada inta badan ay surugsan yihiin maadaama hanaanka loo maray ay u arkaan hanaan qaldan oo markaasi aan waafaqsan nidaamkii hore loogu maraya. dhinaca kalena haddii aan eegno madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa ka taagan khilaaf aad u xoogan oo dhinaca saraakiisha ku dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku saabsan xiisadda ka dhex oogan dalalka Itoobiya iyo Masar. waxaana sidaas soo qoray wargeyska Africa Intelligence. Itoobiya iyo Masar oo isku haya biyo-xireenka webiga Niil ay sameysay Itoobiya. Addis Ababa ayaa dowladda farmaajo waxay si toos ah ula safartay Itoobiya hase yeeshee dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weli mowqifkeeda cadeen oo aan dhinac jirin sida wargeyska uu sheegay. mid ka mid ah xubnaha sida aadka ah ugu dhow madaxweynaha oo ah agaasimaha Nismaha Salaad ayaa xiriir qoto dheer la leh Masar wuxuuna labada 2004 ilaa 2022 kuna la Qaahira halkaas uu arday ka ahaa balse xiriirka ayaa sii jiray tan iyo markii uu ku soo laabtay Soomaaliya 2012 ayuu yiri wargeyska Africa Intelligence. booqashadii rasmiga ahayd ee Xasan Sheekh Maxamuud oo Qaahiro u tagay July waxa uu ku weeliyay Nismaha Salaad taliyaha Nisa labada aag halkaas oo madaxweynaha uu kula kulmay dhigiisa Masar Cabditaah Al-Siisi. waxaa soo kale safarkaas qayb ka ahaa wasiirka gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo wasiirka cadaaladda ee dastuurka Xasan Macalin kuwaas oo miisaan culus ku leh dowladda aadna ugu dhow madaxweynaha. Mahad Salaad iyo Jaamac iyo Xasan Macalin ayaa sida wargeysku qoray taageersan in dib loo heshiiyo laguna dhawaado Masar kadib markii uu riixay madaxweynihii hore ee farmaajo in nidaamkiisii Fahad Yaasiin. si ka duwan safarka Masar oo degdeg ugu xigay kadib dib doorashadiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayay 4 bil ku qaatay inuu markaasi boqdo Addis Ababa wuxuuna ugu dambeyn tagay 29 ilaa 29 bishii September. safarka Itoobiya ee Xasan waxa ku weeriyay wasiir dowlaha arrimaha dibadda علي برعد oo loo arko inuu yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dadban ee wasiir dowlaha madaxtooyada Abshir Buqaari iyo la taliyaha madaxweynaha Aweys Xaaji Yuusuf. saddexdan nin oo mas'uul looga dhigay inay abaabulaan safarkaas ayaa doorbidaya in markaas la joogto xiriir xoogan oo la yeesho Itoobiya oo daris la ah Soomaaliya sida Africa Intelligence uu leeyahay oo wargeyskaasi si kastaba waa koox yar oo laga tiro badan yahay ayuu qoray wargeyska. madaxweynaha ayaa xog ay heshay channelkeena kulmiska wararka ayaa sheegaya xog aan helnay ayaa markaas sheegaya
xog aan helna ayaa sheegaysa inuu doonayo in Soomaaliya ay markaas dhexdhexaad ka noqoto. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xog aan helna waxay sheegaysaa in uu doonayo inuu dhexdhexaad ka noqdo labada dal, balse waxaa rumaysan yahay inay taasi adkaan doonto marka la eego sida xubnaha ugu awoodda badan dowladdiisa ay labada dhinacba ay u kala safan yihiin. waxaa kaloo xiriir la sameynay filan Soomaaliya si ay uga jawaabto warbixinta wargeyska Africa Intelligence, balse kama aysan jawaabin codsigana. qaybta warfaafinta ee madaxtooyada ayaana waxay ka dambeeyay farmaajo noqotay qayb fadhiid ah oo ay adag tahay in la helo loona socdo xaaladda dalka lana socono xaaladda dalka iyo warbixinada ay warbaahinta ka qorayso madaxtooyada waxayna kusoo koobtay keliya inay soo saarto war-saxaafadeedyo. qaybihii dhexe ee janal keena ayaa daawanaysaan saaxiibayaal. haddii aad nagu cusubtahay subscribe una saar gambalada kana furo una sii sheergareeya saaxiibadii meel kasta joogaan, midka kumatiga like noo reebaya aad baad u mahadsantihiin. bal markaana aan eegno maxaa ka jira in kala fadhiyada baarlamaanka ee Soomaaliya ay markaas loo hakinayo qorshe siyaasadeed maadaama mooshinno danabeysan dhinacyadu laga gudbinayo. xildhibaanada baarlamaanka ayaa ka hadlay sababta uu u baaqday furitaanka kalfadhiga loo ballansanaa ee baarlamaanka Soomaaliya maanta. qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa sheegay inaysan jirin sabab lala soo wadaagay oo furitaankii kalfadhiga uu maanta u baaqday haddii ay ahaan lahayd sabab la xiriirta dagaalka lagu dhawaaqay ee ka dhanka Al-Shabaab. anaga waxna soo gaaray oo dhanka baarlamaanka noogu yimidna ma jirin. howsha sideedii ayay ku socotaa. waxaa iska jira warar suuqa oo saxaafadda qayb ka tahay oo ah in kulamada baarlamaanka dib loo dhigayo, balse anaga waxna soo gaaray ma jira, ayuu yiri xildhibaan Cali Xaaji oo la hadlay saxaafadda. wuxuu soo kale hadalkiisa kusii daray wararkaas waxaa la isku haleyn karo ma ahan howsheedii sideeda ayay u socotaa. marka waqtigeedii la gaarana waa leegayaa sida badanaa arrimaha lagama hordhaco waqtigeeda ayaa markaas la sugaa, ayuu sii raacay xildhibaanka. sidoo kale xildhibaan Qaali Shir ayaa sheegtay in kulanka baarlamaanka uu maanta u baaqday sababo la xiriira inta badan xildhibaanada oo safar ugu maqan dalka. waxay bedelkeeda kusii dartay waxaa markaasi nala balami 6 bishan waa inaan markaasi imaan doono insha Allah. waxaa naloo sheegay inay taalo shaqooyin badan. aqshada kulamada baarlamaanka Soomaaliya ayaa kusoo aaday xilli la hadalhayo in kulamada baarlamaanka loo joojiyay sabab la xiriirta dagaalka dhanka Al-Shabaab iyo markaas ka bilowday qaybo badan oo ka mid ah dalka, isla markaana haatanba uu weli dagaalka xoogiisa inta badan uu sii socdo. wararka arrimaha gobolka intaan aadin Mareykanka ayaa shaaciyay magacyada 3 xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. dowladda Mareykanka waxay si adag markaas u taagan tahay ugu taagan tahay wadada ay ku caawinayso dadaalada dalalka bariga Afrika iyo midowga Afrika ay hogaaminayaan. bayaan ka soo baxay Mareykanka oo la soo dhigay bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ayaa lagu shaaciyay magacyada rag mas'uuliyiin sare oo ka tirsan Al-Shabaab oo lagu daray liiska wax loogu yeero argagixisada. dowladda Mareykanka waxay si adag markaas ugu taagan tahay wadada ay ku caawinayso dalada bariga Afrika iyo midowga Afrika hogaaminayaan dagaalka khatarta Al-Shabaab. la dagaalanka khatarta Al-Shabaab oo ka mid ururada ugu halista badan ee hoostaga Al-Qaacida oo dilay kumanyaal qof oo ay ku jiraan muwaadiniin Mareykan ah oo lagu laayay Soomaaliya iyo bariga Afrika ayaa lagu yiri bayaanka Mareykanka soo baxay. rag magacyadooda la xusay ee lagu daray liiska argagixisada ayaa u muuqday kuwa aan horeba wax badan looga aqoonin, balse warar ka soo baxa Mareykanka ayaa lagu sheegay inay yihiin shakhsiyaad sida buuxda gacanta ugu haya Al-Shabaab xeelka ugu muhiimsan u haya. hogaamiyaashaas oo kale lagu soo daray ama lagu soo rogay xayiraad dhaqaale ama cunaqabateyn si gaar ah loogu bartilmaameedsanayo iyaga oo markaas cid walbaba oo la macaamisha baliri. waxaa go'aankan laga qaatay uu qayb ka yahay fulinta digreeto amar oo tirsigiisu yahay EO 13224 taasoo wax ka bedel markaasi lagu sameeyay. magacyada waxa ay kala yihiin Maxamed Mire oo markaasi Al-Shabaab ka hogaamiye aad weyn saameyn ku leh. sidoo kale Yaasir Jiis in lagu magacaabo magac saddexaad waa Yuusuf Axmed Xaaji Nuurow. dhammaan magacyada markaad eegto inta badan si fiican looma yaqaano, balse waxa ay u muuqdaan inay yihiin kuwa xil sare ka haya ururka Al-Shabaab. wararka Soomaaliya caalamka